sheeg magacyada loo kala yaqaano neefka rida ah markay diyaar u tahay inay taranto macnaha markay orgi u baahan tahay waa ri orgi u baahan iyo sac dibi u baahan labadaas waxa laga rabaa magac loo yaqaano sac inuu tarmo diyaar u ah iyo ri inay taranto diyaar u ah magac loo yaqaano ridu marka ay orgiga u baahan tahay waxa la yiraahdaa da'aysan ridaas waa da'aysantaa la yiraahdaa markii sacu oo dibi u baahan yahayna waxa la yiraahdaa lugadega la yiraahdaa ama santi okay waa maadsan yahay si wanaagsan ay u gartay lugadeg ama degan saca waxa la yiraahdaa markii uu taran diyaar u yahay sacu wuu degan yahay ama waa lugadeg aad u maadsan yahay da'aysanna waa caan waa la wada yaqaanaa laxdu markay taranka diyaarka u tahay magaca loo yaqaano iyo neefka geela ah oo hasha ah markay ay diyaarka u tahay inay taranto magaca loo yaqaano midda koowaad waxa waaye laxda markay waxa la yiraahdaa waa sulmaysan tahay hashana waxa la yiraahdaa waa sulmaysan tahay waa sulmaysan tahay lila kordhe waa sulmaysan tahay hashana waxa la yiraahdaa waa basacsan tahay ama waa tabis waxa la yiraahdaa way sulmootay ama waa sulmaysan tahay neefka geela ama hasha markay diyaarka taana waxa loo yaqaanaa waa basaxanta ama basax baa la yiraahdaa magacyadan soo socda sababta loogu baxsho ilmaha inay sheegaan ha iska raali ahaadeen dad jooga meesha magacyadooda hadii aan sheegno kow mayran labo daahir lambar 3 shiiqdoon mayran iyo daahir saddexaas magac ka rabaa shiiqdoon mayran iyo daahir sababka loogu baxshay dadka loo baxsho ustaadii hadii aan isku dayo daahir waa qof dhashay asagoo nadiif ah oo qaab ahaan uusan wax lahayn qoyaan ah mayran waa la mid oo waxay la macna wadaagtaa daahir sheekdoonna hadii aan qiyaaso wuxuu rafaadiyo hooyada marka waxa la doono sheekh hooyo quraan saara sidaas baan aaminsanahay ustaad axmed si sax ay u gartay daahir mayran iyo nadiifo waa isku sab waxaan rabaa raage guure iyo nageeye raage guure iyo nageeye raage guure iyo nageeye guure ayaa soo istaagay si uga jawaab wixii magac loogu baxshay nageeye waa ninkii cidda nageeyey oo geedigii baajiyey guuraya waa ninkii ku dhashay midbada ama guurada ama dheelmada habeenkii saa u taqaanaanba raage waa ninka wax badan ayadoo laga yaabo in gabdha ka horeeyana ayaana sugayay asna dhashay sidaasaan u fahamsanaane abaan guure aad u mahadsan yahay sharafi karaamuu leeyahay markii hore raage wuu qalday laakiin markii dambe u saxay raage laba sabab loogu bixiyaa ilmayga marka koobaad raage waxa loogu baxshaa caloosh inuu ku daaho ilmuhu 9 bilood ay ku dhashaan haddii sanad uu gaaro sanad iyo 3 bilood adoo caloosh ku jiro waa raage waxa kale oo raage loogu bixiyaa in gabdho bas cid u dhashaan markii 5 gabdhood la maraa kadib wiilka u dhasho raage loo bixiyaa guure waa ka qaldan yahay wili cido guure iyo midba midna ma ahan guure asaga xilli dambe imaaday 6 saac kadib cunugu hadduu dhasho guura la yiraahdaa